markay sidaas tiri ayuu tigaad wadaan gacanta ugu jirtay ceelka ku laalaadshay. Baxsan aarre hooyadiis way faraxday oo inuu ninku ariga u waraabinaya ayay mooday. xaalkusa ka duwan sidii ay filaysay ee biyihii ayuu horteyda ku sayray mise dhiig baa ku barxan. intay isku naxday ayay tiri waa maxay? isna uma jixinjixina uga naxsay waa dhiiggii walaalka oo isagoo biraysan ayuu ceelka ku dhex rafanaya. baxsan fiidow iyada oo hurgumadaas qabta ayaa haddana tigaad ugu daray tiininkeeda iyo ubad uu ka agoonteeyey. maantase wiilkeeda ayaa nadarkii ka furay kana run sheega magaca ay ula baxday ee aarra ah. abbaaraha waxba kalama horrayn goortii la ogaaday inuu aarra ciddii u qixiyey dhulka direed iyo geeridii tigaad xaane. warna looma hayo wixii ay labada beelood uga tashadeen arrinkaas. fidnadaas taxanaha ahayd gabadhii ay ka bilaabmatay ee koraad diiriye ahayd waxay u dhimatay si aan ka naxay. sida ugu maqaalo ah raaga markuu mehersaday dabadeed ayuu ogaaday in gabadha reerkoodii laayeen nindoorkoodii iyo weliba wiilashii isaga la dhashay. sidaas ayuuna ku furay. intaas dabadeed waa tii labada beelood sii kala fogaadeen xeerkooda oo noqday dil, dhac, dhagar iyo waagii soo baryana laysu dawiyo gabayo aweyti iyo digasho ah. xaaladaas murugsan jeer lagu sugan yahay ayay koraad diiriye kaneeca la xaraarugtay. dhowr beri markay bukaanjiif ahayd ayuu reerkeedii u guuray degsiimo kale iyadiina waxaa looga tagay bartii. marka uu qof jiran yahay cidduna geedi tahay waa in bukaanka la saaraa awrta rayga ah midkood. nasiib darrasa qoysku wuxuu gaadiid ka lahaa rati layli ah oo buubaalka awgiis aanan dadka la saari karin. meesha uu reerka u guurayo oo dhowey darteed ayaa la rabay in koraad loo soo noqdo oo halkeeda laga xambaaro. ha yeeshee goortii laga tagay iyadoo aan dhulka ka kici karin ayuu waraabe isugu habarwacday. dhacdadaas waxaa laga wariyey walaalkeed xaruun diiriye oo ka soo gaaray iyada oo weli jirkeedu dibaaxanayo balse ogadeeda qayb lafuu ka soo baxeen oo bahalladii hadba cad rifanayaan. dhibkaas waayada hore dhacay aniga oo barbar dhigaya arrinka ladan oo ila ekaaday kii koraad diiriyey ayaan socod ku soo gaaray aarre oo dabrayey rati oo markaas dhaan ku keenay. isaga oolka seetada ku dhuujinayo ayaan agtiisa soo istaagay kuna idhi adeer iska warran. aarre waa nabad. aniga adeeru dareen baa jiro ciilna waan la go'i rabaa. aarre maxaa dhacay? aniga adeerow ninka igu sheegay inaan gumeed ee haddanay odhanaya gabdhaheenna ma geysid muxuu iga mudan yahay? aarre kaasi waa nin aan ku garanayn ama waa nin kula xifaaltamaya bal si fiican igu warran. aniga shalay ayaa hobaygii dhankaas ahaa kula hasaaway inanta uu ugaasku dhalay. maantase waxaa lay sheegayaa in gabadha lagu canaantay hadalka ay ila wadaagtay oo weliba wiilasha la dhashay igoobayaan si ay ii dilaan. adeerow qabna iyo qoora la'aan dhagxumadaas miyaan qaadan karaa? aarre kumaa kuu sheegay in sidaas wax u dhaceen? aniga ladan baa ii sheegtay. aarre waa tuma ladantu. aniga waa gabadha sheekadu noo dhexaysay ayada uunbuu ugaasku gabar ka dhalay. aarre haddii warkaasi dhagoobo waa laynaga xaal marinayaa. hase ahaatee si aan wax u hubsado ugaaska ayaan gabadha kaaga dooni ee adigu berriba ka lah oo wiilashii u sheeg inay geela la soo laabtaan sida ugu dhaqsaha badan. aniga waa tahay adeer. aqalka oo aan ku soo jeedna ayaan soo gaarnay isaga oo gogosha ku sii fadhiisanayo wuxuu igu yidhi xaydarow gar iyo geed fadhiisan maayo jeer ay wiilashu soo laabtaan ee mar uun farriinta iiga gey. tan iyo haatan ma ogi sababta oo adeer u dalbaday soo laabashada wiilasha. ma wuxuu doonayaa inay garta u xijiyaan wiilasha ilgiirka ah ee kan ugu weyni barbaarka yahay, mise wuxuu rabaa haddii arrintu xumaato in ay garab u noqdaan? kollay ahaataba aarra ma tala iyo taawul xumo oo walow lagu maahmaahay raggu gudnimo ayuu god ka doortaa, haddana xaalku heerkaas ma gaarin
waa siday ila tahay habeenkaas waxaan hadba dhan isu gadiyo aniga oo aan hurdo ladin ayuu waagu dhag yidhi. markaas baan u jarmaaday dhulkii aan wiilasha uga soo tegay. warankaygii ayaan salab u qaatay, sahayna waxaan u guntaday hilba iyo samaxiga aarre xalay ii soshay. markaan deegta u riday sahaydii ayaan docda koofureed u dhaqaaqay. faraskaygii haybad ahaay ayaa sidii salaamadla hawada igula laday. maba aan dareemin cabbaarta aan goynayo jeer aan soo istaagay ceelkii dabxareed oo ay xoolo tira dhaafa qaar kaalinta ka wabxeen qaarna ay weli horan yihiin. oon baan la liitay intaan soo gudbay ayaan wiil ceelka shubayay ku idhi oomaye biyaha ii dhib. intaan biyaha qurqurinayay ayuu wiilkii igu yidhi ma xaydargaday baa tahay? haa ayaan ku dhahay. markaas buu ii sheegay in geelii reer aarre hadda ceelka laga fuliyey. halkaas ayaan faraskii ka jaydalay ilaa aan soo gaaray iyaga oo geela u quminaya dhulkii ay ka soo arooriyeen. aragtidooda ayaan ku farxay, iyaguna sidoo kale ayay weji furan igala hor yimaadeen. bariido iyo guddoon markaan isweydaarsannay ayuu baynax igu yidhi xaydarow hashii miyaad soo weyday, maxaase faraska u soo waday? aniga dareen baa dhacay. maalintan dhulkii tagay ayaa lay sheegay in ladan walaalaheed ay warma igu raadinayaan. inaan gumeed bay igu sheegeen aanan gabadhooda geynin. baynax maxaa xigay? aniga ee adeer arra baan u sheegay. markaasuu yidhi gar baa loo gondolaabi ee wiilasha geelaha soo celsheen. arbow ayaa si carala u yidhi waxay iila muuqataa in wiilashii cawlanaa ay gacani ina kala gaari doonto. kaariye ayaa haddana ku tiraabay reer waasgeedii miyay hilmaameen waagii geelooda la qaaday sidaan ugu soo dhixinnay. waxaan geela soo dejinnaba fiidkii ayaan guriga nimid. hase ahaatee qayr lama aan kulmin ee baroor iyo oohinbaa isku baxaysa. yaa badana dhammaanteen ayaa hal mar orod ku soo gaarnay aqalka, mise waaba adeer aarre oo geeriyooday. eedda faadumo oo korkiisa fadhisay ayaa noo sheegtay in isaga oo gogashii uu ku tukaday ku gamcay ay laba wiil soo kor istaageen. waxay ku dhaheen bay tidhi xaydar xaydar xaydar. kadibna markuu soo kacay ayay warmeeyeen ilaa uu gadaal u dhacay. wiilasha midkood ayaa weydiiyey kuwa ay dadkaasi ahaayeen. samaxigo ayaase u sheegtay oo tidhi waa hiibe iyo danan, waxaase waranka ku dhuftay haybe. labaduba waa inamadii waasku dhalay, waana kuwii waranka ila goobayay ee ay ladan iiga digtay. ciddii waxay noqotay qof afka furatay ee barooratay iyo qof uurka ka ooyayo. aniguse caloolxumada lala hawogta waxaa ii dheer in aarre daraadday loo dilay. waxaa laabtayda sii calwinaya catawga haweenka iyo hiihda wiilasha ee isbiirsaday. xaalku ma degana, jawiga dhammaantiisna sida dabaylaha hugmaya, saxarka bidaya, shimbiraha ciyaya iyo daruuraha madow ee dayax hoostiisa guurayo, wax kastaaba astaan murugo ayay ila leeyihiin. belo aragnayay maxaa tala ah? baynax oo cidda u weynaay baa yidhi wax walba waa iga xaaraan haddii aan labadaas nin godka lagu hubsan. kaariye ayaa isna sidaas ku dhaartay. reerka oo wada tiiraanyaysan ayaa warkaas madaxa u ruxay. anigusa tala ayaa igu soo maaxatay oo waxaan idhi haddiiba sidaas la yeelayo waa in aan marka hore cidda rarnaa. kolkaas baa annaga oo dool ah nimanka dili doonnaa. xoolaha iyo mandaquna meel ay ku nabadgelayaan bay joogayaan. xaydaro waa tala wanaagsan. waxaa sidaas dhahday eedda faadumo. baynax oo asna korkayga taagnay ayaa madaxa gacanta iga saaray iguna tiraabay waxaan sidaas ahayn ma fali karno. in ay baroorta hakiyaan ayaa dumarka loo sheegay. waxaana loo hedladay geediha habhaabad ah. owrtii gaadiidka ahayd baa dabarka loo furay. aqalladiina udbaha ayaa loo siibay. kaa soo qabo iyo kan ii dhiib lama malayn karo dhaqsaha lagu shaqaynayo. halhaleelkaas markii owrta lagu raray oo tilmaam iyo dardaan la isla ogaaday ayaa reerkii la dheelmiyey. 3 rati ee cidda ku guurayso waa la xiriiriyey, waxaana hogaaminaya baynax marka laga reebo dumarka oo ariga loo xil saaray. inteenna kale waxaan dhinacyada ka marnay geela oo koorta loo wada shareeray. si aan nagula warhelin waxaan afka saarnay koonfur galbeed oo mariixaankii kore uma jidaalin. maxaa yeelay waa in lasii dhex maro ogaadeen oo ah qabiile geel horar ku ah. sidaas darteed ayaan u qaxnay walleed iyo webiganaane la jeedkiisa
oo ay beelo mariixaan ahi dhowaan soo degeen. guura socod baa lagu jiiday, waxaana isla maalintii xigtay ka gudubnay dhul direed. kolkaan hubsannay in geyigu yahay kii mariixan ayuu Baynax yidhi, owrta ha la furo, ariga iyo geelana ha la soo waabiyo. dhulku waa hawd aan waayadan la daaqin oo geedaha cusubsaday iyo cawska dariga yeeshay ayaa farqaha isqabsaday. inkasta oo deegaantu sidaas tahay, haddana reera cusub oo aanan sidaas nooga soo horrayn ayaa si teelteel ah heeryada u dhigtay. aniga iyo Baynax oo weli taagan halkii aan awrta ku furnay ayaan meel fog ka aragnay barbaar soo yaacaysa oo uu mid weliba waran fiiqan kor u welwelayo. intaan bisinka qabsaday gadaalna u booday ayaa warankayga haabtay. Baynaxna sidoo kale ayuu warankiisii gilgilay, gaashaankiina dhegta qabsaday. waxay hadba taa ka soo hoobtaan markay in yar noo soo jirsadeen ayuu midkood dhawaaqay oo yidhi, halkeed ka soo gasheen dhulka? Baynax baa ugu jawaabay, oo dhulku ma idinkuu idiin oodnaay, waa maxay halkeed ka soo gasheen? iyagoo aan warkaas u bogin ayay is eegeen oo haddana mid kale nagu yidhi, ma dar baad tihiin? Baynax, maya idinku waa idinqolama. mid xanaaqsan warankana dhankeen u soo fiiqayo ayaa ku haruuftamay, maxaad isu qarinaysaan? warkaaga la yaqaani. Baynax, ragow isma qarinno oo ninkaas waranka bannaanka la taagan baan ahay, dantiinnu waa maxay? ayagii reerkiinna inaan ogaanno ayaan u nimid. mid baa sidaas yidhi, Baynax, qoladeenna waan idiin sheegaynaaye soo dhowaada, waa maxay rag dagaal ku jiro ayaad u egtihiini? waa runtiis oo raggu colaadin bay nugu qaabilin. siday ahaataba markuu eraygannu gaaray ayay warmihii hoos u janjeeriyeen. xaggayaga ayay u soo dhaqaaqeen. allow kugu mahad, intaan si deggan isu wada taagnay ayaan uga warramay sababta aan u wadanno afguriga direed. waxaan u sheegnay in aan beeshaas la soo dhaqannay, balse aan u dhalannay haybta Sade, iyaguna waa Sade. halkaas ayuu ka bilowday iswarsi hamuum leh. isbarashadaas dabadeed ayuu Baynax uga hadlay wixii deegaankaas nagu soo qabsaday iyo dilkii aabbihiis. sidaas awgeed dhallinyarada oo uu dareenka qabiilku dhiigooda dhex maaxaya ayaa kii ugu weynaa yidhi, meydka ayaan aasaynaa, kadibna waa idinla duuli. intii aan godka xabaalka qodaynay ayaan erga dirnay oo 2 wiilasha ka mid ahaa ayaa isu xilqaamay inay degmada soo wargeliyaan. in door ah kadibna waxaa goobtii ku soo ururay dhallinyaro, dumar, odayaal, wadaaddo iyo mudantidii beesha. halkaas duug qurxoon baa ka dhaxday. odayadii tolkuna waxay dhallinyarada ka codsadeen in aanay dagaal ku degdegin. iyaga ayaa isu xilqaamay inay dhibka kan maaradiisa raadiyaan. waxaa la yidhi, laabo laba ula. mahmaadaas waxaa la mid ah dardaaranka odayada iyo damaca wiilasha aara dhalay oo u muuqda mid isla saan qaaday balse isweydaarsan. si walbaba xaalku ha ahaadee, duco iyo tacsi badan kadib markii la kala dareeray ayuu Baynax igu yidhi, warkaas iska daaya ee waa in haybe iyo danan godka lagu ogaado. wixii ohol raadinaya ha ka hadlaano nin la dilay iyo nin loo dilay. oheeyaa, dayma laabtu ila oloshay ayaan bidix uma jeertay Faadumo Warfaa iyo Haybe Faarax oo labadooduba murug la hagoogan. waa xaasaskii aare ka dhintay. way aamusan yihiin, balse sida aan dareemayo laabta ayay ka wada ooyayaan. dumarku mid weliba caynkeede, Haybe Faarax oo aare u dhashay, Arbow, Dirir, Kaaha iyo Filsan waxay saygeeda la noolayd 30 gu, haddana waa 50 jir. waana qofkii ugu horraysay ee aare nolol la wadaagtay oo uu dooqu mideeyo. waxaa la ogay inuu aad u jeclay kuna dhaaran jiray. markuu socdaal u baxo, dhigaal bay u kaydin jirtay oo timirta barnida ah iyo odgoc ayay u sii xasayn jirtay. kolkuu yimaadana farxad ayaa baar qaadi jirtay. isaguna jacaylku u qabo awgiis ayuu sida carruurta madaxa ka dhunkan jiray. aarsadana wuu mahadiyey guurkii Haybood oo hodanti ugama horrayn arooskeeda. waxaa kale oo aan xasuustaa markuu adeer meel u muraado inay u xirsi xiri jirtay ilaa uu naga marqana ay sii fiirsan jirtay sanqaadkiisa. waayadaas la soo dhaafay, Haybe waxay maanta u eg tahay ilmo ay labadiisi waalid ka dhinteen ee rajo ka qabo inay xabaasha ka soo laabtaan. Faadumo Warfaa iyadoo abaal gooni ah ayay aare u haysay, sababtoo ah turaal ayuu u guursaday iyada oo sabool ah oo weliba reerkeedii ka soo irdhowday. Faadumo markay 14 jirsatay ayaa waxaa kufsaday
nin inkaaran oo weliba aad u dilay. ilig ayuu ka riday, foolkana daqar weyn oo heemaalkeed wax u dhimay ayuu ka gaarsiiyey. uurkutaalladaas waxaa sii huriyey in la aqoon waayey ninkii dhibka geystay, faadumana ay sidaas uur ku qaaday. horraantiiba markuu uurkeedu bannaanka yimid ayay ciddeedu dayrisay, maxaa yeelay weji xumo ayay ka diiqoonayeen. waagaas ayay nafta miidaamisay una bareertay hayaan uu yoolkiisu yahay mar uun carrigan ka fogow. socdaal ayaamo badan ah dabadiis waxay u soo martisay aarre oo markaas qabay xaybo, laakiin aysan carruur u dhalin. faadumo inaba ma qarsan dhibka ay la basaastay iyo sida xaalkeedu yahay. hubaal waxaa ku dhabowday mahmaahdii ahayd daacadima hongowdo. si fiican ayuu aarre u soo dhoweeyey, diiftii ka muuqatayna wuxuu uga bogsiiyey baanin hagar la'aan ah oo daraaddeed wanan shilis ah loo qalay. goor dambe oo ay dhab u xafaara goysay ayay ku codhatay wiil loo bixiyey ceeltire. ilaahay amarkiis isna ma raagin ee bilo dabadood ayuu dharabtii ku geeriyooday. waagaas gadaalkiis waxaa ceeltiraheeda noqday aarre bulxan oo guur xalaal ah iyo dhaqan raaxa leh ku sharfay. sidaas awgeed nin keliya uma uusan ahayn ee wadaayigeed iyo xigaalka ay waciisato ayuu ahaa. maanta waa u toos calool xumo, berrina waa u asaysid kor iyo kolba lala basaasi doono. gooshashka xigana waa u agoon koris, balse labada islaamood waxay dhexda uga jiraan wiilal u hana qaaday iyo geel tira dhaafa. eebba maahane gacan aadane uma baahna. maalmo dabadood ayaan ogaanay in mariixaanku qabanqaaminayo erga beesha diraad kala xaajoogto dirkii aarre bulxan. waxaa kale oo aan maqalnay in arrinka lagu dhammayn doono waanwaan iyo mag la kala qaato. sidaas bay reer aarre oo aan anigu ku jira fadhiga uga kaceen inay aabbahood u aaraan. baynah oo cidda u weynay ayaa ku taliyay in aniga dirir iyo kaariye aan dhulka ku noqonno si aan gaadmo ugu soo dilno heybe iyo danan. maalinkii aan sidaas go'aaminay galabteedii ayaa waxaa nugu soo baxay wardheere oo ay waasgeeddii xigaala yihiin. markaas buu cega yidhi, wuu nugu soo socdaaye waranka rubadda ma u geliya. waxaan ku idhi, cegow sidaas ha yeelin, odaygani waa nin wanaagsan, aabbahana ninkii dilay uunbaa loo dilaya. wardheere wuu naga badbaaday, balse farriin baan farnay. baynax baa ku yidhi, wardheerow haddaad gaarto hilooyinkii direed oo aad aragto heybe iyo danan, u sheeg arrinkeenna ku dheh waxaad disheen aarre bulxan. wiilashiisiina waxay soofaysanayeen warma ay ku aarsadaan. galabtaas dood adag ayaana dhex martay annaga iyo ninkii wanaagsanaa ee wardheere ahaa. warkiinna waan gudbinayaa ayuu yidhi, hase ku degdegina ee ka dhur suga wadahadalka labada beelood u socda. cabbaar markii uu wardheere naga sii maqnaay ayaa waxaa ii yeeray baynax. si haleel ah ayaan ugu tegay, misana isaga oo kuntullaysanayo ayuu igu yidhi, waxaan doonayaa inaan codkarnimadaada ku ciilbaxo ee ka warran. aniga waxaad ifartaan yeelayaa. baynax wardheere gaaljacelkaad reer abtigiisa iyuu sii marayaa, baryo badanna way ku qaadan in uu farriinta geeyo. dhibkii dhacayna adiga iyo ladan baa sabab u ahaaye soo ma ogid. aniga haa. baynax ciddu annaga oo gob ah ayayna liideen, waana inaan ka dabaaqno gafkaas. waxaan doonayaa inaad dhulkii u laabato oo aad si dhuumasho ah ladan u soo masaafayso. markuu walaalkay sidaas i faray ayaan obsaday, maxaa yeelay aad baan ugu walwalsanaay sida aan isugu heli karo hanashada ladan ugaas iyo raallinimada walaalahay. sidaas awgeed aniga oo kala batay, balse warka u daw galaya ayaan ku idhi, waayahay maxaad ka damacsan tahay haddii aan ladan inta keeno. baynax gabadhu waxba nama yeelin, haddiise ay ciddu ogaato in gabadhoodii lala tegay oo iyaga oo ceelkaas qabo aan haddana labada wiil ka dilno, sow kama aan guulaysan. aniga waa tahay walaal ee maanta ma baxaa. baynax maya ee berri bax, waa inaan si fiican u tashannaa. aniga yeelay. baynax saha ishaafalatay oo si xun iyo si aan laguu garan iyo galaangal u soco. aniga waa yahay. wiil geelley ah oo agteenna taagnaa
balse warmoog ah ayaa yidhi hadday ku diiddana soo kufso. waa yaab ee malladan ugaas baan waxaas u quuraa. gabadhu beerka iyo igaga taal ilowsa in aan dilka walaalaheed qorsheeyo waxaa sababay gefkii ay galeen. walow aan jeclahay in laga fogaado colaad labada beelood ka dhex tafata, haddana taladu marna way ku seegan tahay marna way kaa sarraysaa oo waxba kama samayn kartid. balse arrimuhu tubtii eebba la doono uunbay marayaane maalintii xigtay ayaan u boqoolay dhankii dirtu degganayd. socdaal dheer kadib ayaan anigoo jaynafay soo gaaray duddii reer ugaaskeeddi. qalbi calowsan, wadna cabsanaya iyo filasho cilanba waan isku qabayay. muggaan ogaaday in aan reerkii kaadka u joogo ayaan geed weyn oo dhuumood ah hoostaga galay si aan isugu qorayo ilaa inta qorraxdu ka dhacayso. sida aan xusuusto, gabadhu dhankan ay ariga u soofin jirtay, lagana yaabee inay galabta igu soo marto marka ay xoolaha hoyaadinayso. goor aan meeshii ku jiro waxna aanay soo socon ayaan maqlay koor aleel ah oo igu soo aadan. waan u dhakaday ilaa aan arkay wiil ugaas ku dhalay oo 2 rati hogaaminayo. qalbiga ayaa ii degay oo waxaanba islahay talow armow reerkii guuray oo aad cid kale u gambanaysa. habeenkaas geedka hoostiisa ayaa iska baryay oo salool aan watay iyo biyihii ubbada iigu jiray isku kabaday. halka aan ku hoyday iyo aqalka ciddu ma isu dheera oo qowdhanka rigaha iyo banaaxiga sacaha ayaad moodaa inay dhagahayga ka yeerayaan. marmarna hadalka dadka ayay leyrtu dhankay u soo bitisaa oo aan erayadii ladan ka dabaa mawjadaha dabaysha. waansan ku hungoobaa. ayaankaygu cana goor barqa ah oo jirkayga mooyey ruuxaygu geedka ka xaluushay ayaan arkay arig geesahayga hagaagaya. intaan si fiican u gambaday ayaa indhaha ku baniiniyey sumadda xoolaha ku taal. inkastoo riyihii igu soo dhowaaday iga dideen, haddana waan ogaaday in xooluhu yihiin kuwii reer ugaaskeeddi. haddana waxaan maqlay ladan oo ariga u heesaysa. dhegta ayaan u raaraaciyey iyada oo ku xariidinaysa naahoy garoy heedhi waqan bahalku gowracini hoy socodka soo gaabi aan gaarna golihiiye oo geed udaygiiyo aad cawska soo goysid. naahoy garoy heedhi aad darar la gabalaaxdo aniguna gaddeediiyo intaan gabar kaluu yeero oo guudka ii tidacdo aan gallad ku soo hoyanno. intaan wax yar geedkii madaxa kala baxay ayaan si deggan ugu dhawaaqay ladanay siis. markaas bay iyadoo aan fariirsan oo dhabannada haysataa igu soo dhowaatay. haddana gadaal bay iiga durugtay. naaheedhi maxaad iiga naxday? waxaan ahay Xaydare. markaan sidaas ku idhi bay ilmi ku soo joogsatay oo cod oo walaac ka muuqdo iigu warcelisay sawtii ay danan iyo hayba ku dileen. miyaanan garan inaysan xiga aarrin run sheegtay? waxa aabbaheed dilayna ay 2daas wiil ahaayeen. intaasi caddayn iigu filan. se markaan arkay in gabadhu iga didsan tahay ayaan ku maansooday gabay aan waayadii dambe u arkay inaan goortaas ku fududaaday. waxaan si hoose ugu idhi ragga digan hadday dirir galeen dow la garan waaye, hadday dirac dhigooda dileen dow la garan waaye. doqomowday beeshii direed weri dirkeed weeye, dugayey garweye dilkii aana dahan weeye. dara dhiiga gaad iyo dagniin dabingalkeed weeye, jannab dadan asiil laysku dagi doodda kulul weeye. isna dilan dalluunbaa u qodan aarra kii dilaye, soo durug talaa noo dabrane hayga sii didini. ladan alla ba'aye ma waxay dilin aarre oo inay adiga ku dileen bay noo sheegeen. aniga miyaa loo begay geeridaydaas la sheegay? ladan kollay anigu maya. aniga dilka dhacay iyo qaxeenna dadku muda og yihiin. ladan haa, waxaase la garan waayey dhanka aad u hayaanteen. aniga ladanay muggii aarre la dilay ayaan nafteenna u baqannay oo kolba haddii odaygii la dooxay meeshu joogis ma laha ayaan isdhahnay. haddana adiga ayaan kuu soo laabtay. waadna og tahay oo haddii lay arka waa lay dilayaa ee arrintaas wax ka dheh. ladan
waan jiraday markii lay sheegay dilkaaga, haatanse waxba kuma dhihi karo ee taniyo berri iga warsug. Aniga oo dareemaya inuu qalbigeeda ula jiro ayay cabbaar indhaha ila raacday. Intay madaxa ruxday ayay iigu ducaysay badbaado Allah. Sidaas bay iga dhaqaaqday iyadoo hadba gadaal soo jalleecaysa, aniguna aan u gacan haatinayo. Habeenkaas iima ay imaan ladan oo maanyir baa halkii igu dilay, balse maalintii xigtay goor aan oon la hanqarmay, gaajana iiga daran tahay, oo intaan booraystay salaadii duhur dukanayo ayaan maqlay degdeg durbageedka soo gashay. Cabsidii i gashay darteed markaan salaamo naqsaday, intaan sujuud sahwi raaciyey ayaan gadaal soo jalleecay. Mise waaba ladan oo dhiil arjeeg ah caano iga shubaysa. Goor aan ganuunkii caanaha ahaa ka laacay iyadoona mid kale ii shubayso ayaan weydiiyey sababta ay u beegsan tahay. Markaasay tiri, xoolihii ayaan meel fog ugu soo tegay, aqalkiina waa layga sugayaa. Haddii meelahan laygu arkana wax baa lay weydiinayaa. Weligeed inta ay maanta ii jirto iigama soo dhowaan, malaha taaka iima jirto oo korkeedu wuu ii soo carfayaa, neeftooduna xaaddayda ayay dhaqaajinaysa. Jeer aan sidaas isugu dhownahay oo saxansaxadii nolol wadaaggu i hafisay ayaan qorshahaygii daha uga qaaday. Ladanay ayaan ku idhi, ciddii waxaan uga soo tegay carro aan dhowayn, adiga uun baana kuu soo laabtay, ma garatay? Reerkaaguna way i kahanayaan oo lagama yaabo in aan geed wada fadhiisanno iguna kaa daraan. Aniga oo sidaas og ayaan soo baxay, qorshahayguna waa inaan ku masaafeeyo oo si qarsoodi ah ku gaarno dalkii Mariixaan. Intaas wixii ka gadaaleeyo, reerkaaga samihii uu xididku kala mudnay ayaa marsiinayaa. Jidkaygu waa kaas, adiguna waa intaasoo midka wacan haysaa, ee bal aan talada wadaagno. Ladan, walaalow ma doonayo inaan waalidkay ka inkaarsado, adigana dadka waan kuugu jeclahay. Gahiirna wuxuu bixiyey 100 neef oo gabaatigaygii ah. Marka ma garanayo waxaan sameeyo. In door ah ayuu xisku iga maqnaay, oo hadalka ay tiri ayaa laabta ifkeeda iga damiyey. Si uusan warku ila dheeraan ayaan maanse ku soo koobay una mariyey gabaygan. Tixda gabay gugaangiis ma odhan, galalafteedii kama gaabsan gadahaygii hore, maanka kama goyni. Geediyo yahoon baan ahaa gabadhaclayn uune, iminkase garweeyo gudboon tixihii goonyaale. Gabar yahay haddaad garanahayn tala go'aankeeda, ama aad guddoonkiyo lahayn nolosha kuu gaara, talaan kuu gollaadiyey, xigmaan kuu gunjinayaaye, ee balgara wixii kula gudboon hana gantoobaynin. waxay gubi adna kaa gamboon yaan ku garansiini, bal gahiirka aad sugi ninkeer godla xaaseeda, gabaatiga ninkeer bixin adoon gani lahaa saawin. Inkastuu gurboodiyo lahaa guunyo tira dhaafa, inkastuu gar iyo guud lahaa goronyo cawleeda, inkastuu garweexeed qurxoon goodad wacan qaato, maangorofo odagii lahaa dhaqanka guulleyda. Maxaad ugu garaar furi hadduu xilaha guulguulo, go'ayeey hadhowta ah maxaa ku galbini caawa, talaan kuu gollaadiyey, xigmaan kuu gunjinayaaye, ee balgala wixii kula gudboon hana gantoobaynin. Duq gondolan daruur sii galbani, ceelka sii guraya, nafta laguma gaasiro, adduun sii gabaabsaday, waxaa laga gogtaa roob intuu gooxda da'ayaahe. Hadduu kula golyoonayn, hadday gogoshu ciilowdo, inkastuu gu'yaal kula jiro kuguna gaafmeero, garaarkaba hadduu goosanayn sow galliban maahan. Garoob aan la furin baa jirtoon lagana gelyooni, gaajadan ku daynayn shin aad ramagii geelmaali, ee aad had uun gululuclayn maad u gogol xaari, talaan kuu gollaadiyey, xigmaan kuu gunjinayaaye, ee balgara wixii kula gudboon hana gantoobayn. Guddoodiga habeennimo waxaan gulufka hayaaba, gaajiyo haraadkana qajeel kali ku gooshaaba, gardhaalaha shabeelkiyo dhurwaa halaqa goodaado, gibil adagta wiishiyo waxaan good u halaysoobay, gudcurrada habeenkii waxaan godadka jiiraayey,
kolkan qodaxda gooyaba wuxuu gibil ku dhiigayay gacalkan u soo golongolaa geeloy adi weeye gallad sarana waan kula rabaa guudka nololeede anaa guriga reer geeddi jeer geel ku ciltiriye tol baa uga galliimaya waxay gocasho sheegtaane guryasamo inaan kuu galbiyo garab ma ii siini talaan kuu gollaadiyey xigmaan kuu gunjinayaaye ee balgara wixii kula gudboon hana gantoobaynin kuu gaxsan laabtiyo haddaan gacanta kuu haaso adoon iga gidaadayn inaan wada gayoonayno inaan gacalo beerniyo inaan himiladii gaarno waa gaagur malabliyo tu aan kuu gurmaratayn kala garo gal buuxiya dhowaan laaska gorofoobi kala garo midkii labada geed gaafa bixin doono kala garo kan aad laba gayaan dhaxaf garanayso gurdan raaco waa ila xunye soo gargari taada talaan kuu gollaadiyey xig baan kuu gunjinayaaye ee balgara wixii kula gudboon hana gantoobaynin ladan xaydar waan guddoomayaa taladaas se meel aan fogayn ayay adoogay gogol u taal ee miyaad ku dhiiran inaad geedka ka soo baxdo oo aad kala hadasho dilkii arra bulxan magaca alle ayaan ku dhaartay waa uu ku soo dhowaynaya aniga wallaahi garaadka dumar waa gaabis naheedhe arra wiilal buu dhalay haddii arrinkaas laga hadlayana ayaga iga gudboon soo maadan garan haddiise la og yahay inay reer aarna qaxeen soo lama malayn kara sababta aan keligay u soo guryo noqday ladani waxaad og tahay kuma faallaynayo ee talada aan kuu soo jeediyey ama iga yeel ama tuka wanaagsan ke markaan intaas yidhi ayay tallan qarsoon isla dadabtay kadibna intay dhab iigu soo jeesatay ayay iigu maasootay gadday tahaba hadalkii gamboon ararta guugaale gu'ma jiro qofkaan garanahayn gogoldhiggeediiye ina gaartay gobo'daiyo haddaan weerku gelinsiiyo waa sida giraantoo adduun geeddi buu yahaye waa uun gashiin laga gudbee gogashu waa eelka gablan weeye taladan ilaah raalli gelinayne gashi waalidkii goobayow waa garaadyari adna garo xigman xaydarow ku gollinayahay shinni gaagur geed loogu raray malab ku gaashayni kolkay guudka marisiyo kolkay miiddu galaclayso dadku gacantogaaleeya oo gorofta loo xoori iyadoon gidaad daadahayn kana gayoonaynin guga xigo inay soo gashaa oo garaadyari gabar waalidkeed gocanayaan waa gaddoo kale adna garo xigman xaydarow ku gollinayaay gaanigu kolkuu guuxayay gooshu ka hirraagto godkii gufaanaha la yidhi waa gol iyo aaho ninkii geliyey geeliisiyow waa garaadyari gasariir ayaa laga dhaxlaa guur inkaarsadaye gurbood uma hanqaadaan qofkii hooyadii gocane diqdiqooyin lagu go'ahayow downa nala gaarin miyaan kula gallami xaydarow waa go'doon hubane goldolooladan doonayaa inaad gufaysaaye hangadowla lama saarsaday giiji xaraggeeda anna waan guddoonsani inaan wada gayoonnaaye waxaan eedi iga gaarihayn gacalo waan yeeli aniga ladanay ina aabbo geel iyo gamaanba waan bixinayaa oo si la welin doono ayaan reerkaaga u qurxinayaa taas waan kuugu dhaaran surin kastana waan u mari wanaajinta reerkaaga haddii aan ballantaas furana noloshayda laan jabtay eebba ha ka dhigo sidaas baan wax u rabaaye aan caawaba meesha ka baxno ladan caaw waxaa la qabanayaa xuskii awowgay jeer riblaawe waana inaan ka adeegaa ee ka warran habeen dambe aniga waa tahay ee soo tabawshayso ilaan socod dheer baanu galaynahay ladan dhiil caano ah iyo cad aan jidka ku sii marno uunbaan soo qaadayaa hadda waan sii baxayaa ee galabta iga war dhowr aniga waa tahay walaalle la soco qaybta 6